bal isweydii su'aal aad u adag, su'aal dad badan ay ka cararaan, su'aal xanuunkeedu aad u adag yahay oo ah yaa baabi'iyey Soomaaliya. dal leh hal luqad, hal diin, hal dhaqan iyo dad isku dhiiga, dal leh xeebta ugu dheer Afrika, dal leh khayraad dabiici ah, dal leh dad caqli iyo karti leh. Laakiin maanta waxaan nahay dal dagaal sokeeye ka soo kabala, dal qaxooti dhoofiya, dal dhalinyaradiisu tahriibaan, dal dowladnimadiisu jilicsan tahay. Sidee Soomaaliya burburka intaa le ku gaartay? Soomaaliya yaa gaarsiiyey heerkaas aynu ka soo sheekaynay. qodobka ugu horeeya ee ku sababay Soomaaliya halka inay gaadhay waa hoggaan xumo. Soomaaliya burburkeedu ma bilaabin hal maalin, wuxuu bilaabay markii hoggaanku noqday nin kursi doon ah, markuu hoggaanku noqday nin qabiil ku tiirsan, markuu hoggaanku noqday nin dangaara wata, markii kursigu ka muhiimsanaaday shacabka, markii awooddu ka muhiimsanaatay cadaaladda, markaas ayuu dalku bilaabmay inuu dumo. dal ma burburo marka hore, dhulku ma burburo, dalku wuxuu ku burburaa maskaxda hoggaanka. qodobka labaad ee Soomaaliya ku sababay inay burburto waxa weeye qabiilkii oo noqday hub halkii uu ka noqon lahaa aqoonsi qof lagu garto oo keliya. qabiilku asal ahaan waa aqoonsi bulsho, laakiin inagu waxaan u bedelnay siyaasad awood lagu gaadho, xil iyo hub lagu dilo walaalka. markuu qofku yidhaahdo qabiilkayga ka hor intuuna odhan qarankayga, markaas qaran ma jiro. Soomaaliya waxaa dishay rasaas, laakiin rasaasta ka hor waxaa dilay kala qaybsanaan ay keentay qabyaaladdu. qodobka saddexaad ee Soomaaliya burburiyey waxa weeye faragelin shisheeye. markii gurigaagu dumo, dad badan ayaa soo gala, dalal deris ah, quwado waaweyn, kooxo hubaysan, dhammaantood waxay ka faa'iidaysteen dowlad la'aanta, kala qaybsanaanta iyo hoggaan xumada. laakiin xusuusnow, shisheeye ma soo galo guri albaabadiisu marka hore bay xiran yihiin. qodobka afraad ee Soomaaliya gaadhsiiyey meesha ay maanta maraysay ee dad badan ay ka murugoonayaan waxa weeye musuqmaasuqa. lacagtii waxbarashada waa la xaday, lacagtii isbitaalada waa la xaday, lacagtii ciidanka waa la xaday, lacagtii danta guud waa la xaday. musuqmaasuqu ma aha war keliya, waa sababta wada la'aanta, shaqo la'aanta iyo rajo la'aanta. qodobka shanaad ee Soomaaliya burburiyey waxa weeye ee ugu dambeeyay waa jiil ku koray qabyaalad iyo dagaal. caruur aragtay hub ka hor intayna buug iyo qalin arag, dhalinyaro maqashay rasaas ka hor intay maqli lahaayeen wacyi iyo dhiirigelin iyo in la hor istaago oo loo sheego wanaagga iyo khayrka. marka jiil dhan ku kalo rabshad, nabaddu waxay u muuqataa sheeko oo kale. bal taba su'aasha ugu weyni Soomaaliya yaa baabi'iyey? hal qof ma baabi'in, hal qabiil ma baabi'in, hal cidi may baabi'in. waa hoggaan xumo, qabiil la siyaasadeeyey, musuqmaasuq xadhkaha goostay iyo faragelin ka timiday kadib markii dalku dumay. waa isku darka qaladaad gudaha ah iyo danaha dibadda. rajo ma leenahay, laakiin hal rajo ayaa jirta, waa dadkii burburiyey Soomaaliya in laga takhaluso, liiskana laga saaro oo la keeno dad ay ka go'an tahay inay dalkooga bedelaan. waxaa maanta kuraasada ku fadhiyay waa dhigyacabkii iyo qabqablihii shalay ummadda xasuuqay ayaa maanta xildhibaan ku sheeganaya oo ku dowladeynaya. waa kii shalay ku boobayay ee burcadda ahaa ayaa maanta kursiga ugu sarreeya iyo xilalka dowladda xafiisyada fadhiya. ugu dambeyntii, Soomaaliya shisheeye keliya ma baabi'in, innaga ayaa qayb ka ah burburkeega, laakiin gacmaha burburiyey ayaa ah kuwa hadday wanaagsanaadaan dhisi kara dalkooga mar labaad. adigu ka fikir, bal isweydii daawade, adiga maxay kula tahay Soomaaliya burburiyey? intayna mawduuca mid lamid ah ku kulmi doono, nabad iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.